Soomaalidu berigii hore riwaayadii la dhigi jiray bay daawan jireen marka mid culimadeena kamid ah wuxuu booqday Djibouti dabeetana reer Djiboutina waqti aad u horeysay weeye anigu kolay maan dhalan aabahay iyo hooyadayba beriga ismay qabin dabeetna markii uu Djibouti tagay baa culimadii mid kamid ah ka codsaday inuu muxaadaro galo meeshana dee Faransiis baa gumaystay oo dadku waa iska Faransiis yar yar marka ghazwatu badr baan habeenkii ka waramay wiil sheekh marka marba waxaan idhaahdaa wa fi riwaayatin riwaayad kalena waxa ku jirtay wa fi riwaayatin reer Djibouti marka hobaladii waa bariye waxba u iman jiro Djibouti baa riwaayada lagu dhigi jiray mid dadkii kamid ah marka gacanta taago sidii reer Djibouti uu yahay waraya saxaabadina riwaayada ma matali jireen marka waxaan uga socdaa wa fi riwaayatin qolay ayaga ahlu xadiidka aad baan uga helaa raalli ahaada waqtigii hore dhacaan ugu tala galay in yar bay nala dhaaftay laakiin waxaan rajaynayaa runtii madasha qaybteedan dambe inaynu aad ugu raaxaysan doono aan si wada jira marka aniga iyo idinkuba aynu xilka ugu wareejino daadiyaha madashan diktoorkii aynu hore isula garanay inuu ugu daayar yahay meesha Soomaa دكتور علي صالح فليتفضل مشكورا ماجورا الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم حمزة مرنا قرادا أطلي مرنا وان كلا لابتي وميدو مركو رجل يدعي علماء إلهي سبحانه وتعالى بركايه جنرال كو جنرال نمديسو أي قرون كتال إنه يسكدعين ويانا وان كلا لابتي بهاش إخواني برنامج كان وحلقوا مقعابا باشال كعلماء waxaan ugu talagalnay ninka sheekha markuu idin hor taagan yahay wuxuu ka sheekeeyaa siirata nabiy sallallahu alayhi wasallam axaadiithii quraankii tadbiiqiisa ilaahay subxaanahu wa tacaala ha barakeeye raggan aad arkaysaan waa rag culus ilaahay ha barakeeye laakiin nin kastoo idinka idin ka mid wuxuu jeclaan lahaa sheekha siduu ula falgalo waxyaabaha uu aqrinayo hadday noqon lahaayeen aayado iyo xadiid iyo heerkan maanta uu taagan yahay suu ku soo gaaray ilaan culimmada ku dayashay mogadan yihiine taa nin walba waa idinka maxamediyo markaa waa idinka dhex guuxaysaa haddaba iyadoo sheeke ay tahay haddana waxaan rabnaa wixii meesha laga lahaa oo tadbiiqi inaad aragtaan culimmadana dabcan waxay qaar asxaabtayda ka mid ah سؤالها إني أجادم ويسكت لكن قش كونديدي القش حرام سؤالهنا سؤال هذاك معها ويسكت سهلين بإذن الله سبحانه وتعالى إنك الصهرجي يجو أتكي مركي حمزة وتايتل كهذا إسي مركي موشن باكيمت وحزب معارض والشعب عبد الرشيد هو جامين يا صباحي شيخ ديرنا وسكرتير كيه جزاه الله خير marka raggaas waa lagu adkeyn doonaa biidna subhanahu wa ta'ala su'aaluhu marka waxay noqon doonaa laba qaybood qaybta koowaad sheekha ijbaari weeye oo option ma laha waa inuu ka jawaabo biidna subhanahu wa ta'ala su'aasha labaad waa su'aal doorasho leh laakiin waxa xukminaya jumhuurta hadday yiraahdaan sheekha laga daayana waa ka deenaynaa hadday yiraahdaan hal la weydiin waan galaynaa sheekha marka waa labada qaybood biidna subhanahu wa ta'ala ما ربنا إن هذا كهذا التاريخ محيالي علماء التاريخ ذولا ما قرصونا مالك لدون بيكو حريصان تحي كلمة حرمنا بإذن الله سبحانه وتعالى أنت شيخ ودعوة وكجرة دعوة الإسكاب بالله باني وحبها سامي مالين بو شيخ رئيسي كتاب بو أقريي وحبو أقريي أنتو دعوة وكجرة وحولكم وحيابة عجيبة وحيابة رنتي هجبكو كيني كر وحيابة ديرجلي ولكم وحيابة يابل ولكم marka insha Allah sheekha isagoo magaciisa saddexan sheegaya biidna Allah subhanahu wa ta'ala waxaan rabaa su'aasha ugu horeysa horta inaan ku hormaro haddaanan meel iska saarin xisbiga waa igu sii adkaanaya ninka aan isayna Dr. Saciid baan horta meel saaray biidna Allah subhanahu wa ta'ala su'aasha koowaad waxay tahay fadiilat maali doctor kow طبعا مسيرك الدعويه markii kugu horeysay waxa ku saameeyay in dacwadan aad ka dhigatid mustaqbal aayatiin
kutubtii aad akhrisay culimmadii aad la fadhiisatay dadkii raadka kugu lahaa saamaynta kugu lahaa su'aaluhu markaad mid ka baxdeen mid kale usoo gudbaya kusoo dhawo macalin doctor xayaaka allah بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وانا 10 دقيقة ان كان يعني هالمامن قف بابا يعني ان شاء الله وهدي ددك اوغلادان هدي يراهدان هلا يرين ويريننا بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته dadku way soo wadeegayaan maxay ka soo wadeegayaan tala su'aasha hadduu aniga doctor cali ugu biloobay taasi waxay caddaynaysaa boqolkiiba boqol inaan ka daayarayo doctorka marka arrinta aad baan ugu faraxsanahay waana soo dhawaynayaa magacayga horta waa Saciid Maxamed Faarax jire marba haddii doctor cali dee sida isu yaraynayo niyar iska dhigayo anigu hargeysaan ku dhashay 2010kii anigoo yar baan hargeysa ka tegey sacuudi arabiya u wareegnay noloshayda ilaa high schoolkii sacuudigan ku qaatay nimcooyinka ilaahay siiyey waxaa ka mid ah aabbahayo magaalada riyaad ka shaqaynaya ayaa magaalo cunayso la yidhaahdo qasiim ku taalla ayaa loo wareejiyey magaalada markii loo wareejiyey baa masaajid aan nasiibkaygu haddana wuxuu siiyey masaajid aan naga fogeyn oo downtownka magaalada cunayso ah inuu noqdo masaajidkii sheekh maxamed saalax al-Uthaymin ilaahay subxaanahu wa tacaala jannada ka waraabiya anigoo 14 jira 13 jira ayaa yani xiisayna guriga ka baxoon dee meelaha meelaysto ayaa masaajidkii sheekhay gelisay anigoo diin badan garanayno dee kurayara الروض المربعية بآخر جريو لح كتابه يسكو حقوق مشان يافرد دقيقة ذوذا ساعة جربه الأول جرتي تي بيرون جرتو نك فرديه كتابك كلا أيها قلي جري شنت كتاب روى المرسن جري هلك مركو يراه وعد الفرائض أيها الباب كبيح جري الدون كم حرقون نعبا علم قا فرائضك مكان يرى سي مكان قرآن كلفت الكيسة حفيد أيه تعرف الشيء دورة مركا أورت الشيخ محمد صالح العثيمين هي حلقة دي سي هي علماء ذا الكاو حكدي جنيسي ayaa diintay jeclaysiisay waqtigayaga dad khutaba ah oo sheekh Axmed al-Qatani iyo Maxamed al-Awadi iyo sheekh Cabdixamiid Kishki isagoo qayb ka mid ah iyo raggaasaan runtii inta hore aan dhageystay aan wax ka dhageysan jiray oo diintay jeclaysiiyay quraanka markaan dhiganayay abtigay baa ila deganaayo dadkan isku daad ahayn waxay masaajidkii tagi jireenoo waxay tagi jireen kubad bay ciyaari jireen aniga abtigay wuxuu Allah u naxariistay inaga hooseeyay wuxuu qasbi jireen masaajidka fariisto oo qasab quraanka ku barto taasina way caawisay abtigay markuu masaajidka igu xareyn jiro iyaga fariisan jiray aad baan u nabcay waan karahaysan jirayo ilma yaro de kubad agtiisa lagu ciyaaraya ma jeclaysanayo inuu xalqada tago imikana Allah u naxariistay markaan quraankii bartay aan xifdiyay aan fahmay aad baan ugu duceeyaa aabaha iyo hooyadii intaan u duceynin ka badan ayaan abtigayga Allah u naxariistay aan u duceeyaa taasi waa jawaabtii su'aashii ugu horeysay waan ka jawaabay su'aasha بارك الله فيك waxaan kale ku weydiin lahaa waxaad isleedahay inta aad dacwadan aad ku jirtay waxaad isleedahay way ku dhaafeen inaad taxqiijisay ahayd waxaad kusoo maray macnaha fi masiiratika dacwiya waxaad isleedahay haddii aad samayn lahayd oo wanaagsanaan lahayd miyaa jira ee kusoo maray iyo waxaad ka fakerayso mashruuc dacwiya inaad ummadda kusoo biirisid waxaan u malaynayaa mikrofonka noo hagaajiya isma maqalna annaga baaraka allah fiik nagu soo wareejiyo waxaan samayn lahaa inaan sameeyay waxaan billah qofka bani'aadamka kullee waxyaalo badan buu jeclaan lahaa inuu sameeyo anu waxaan jeclaan lahaa inaan af Sawaaxiliga iyo Faransiiska barto oo dadka dacwadda labada afood ugu gudbiyo taasina may dhicin oo maanta generaalka buu isfahmi lahayn haddaan khabrigaani dhaafi lahaa marka luqaad fara badan aan barto dacwadda ku wadi lahaa way fiicnaan lahayd يعني تاسو ما أقوم يمسرون تي وحنا سرادة واد مسكريسة حقيقة الدعوة ولا قوة الجرايد كتبت أنا ولا ولا مرصدة أنت أصلا تعرف كل جوابية طيب شيخ دكتور سعيد waxaad caan ku tahay inaad riyada fasirtid riyada kugu yaabka badnayd ee ku soo martay fasirta noo sheeg riyadu way farabadayn riyaan dhowr jeer ka sheekeeyay waan ku soo celin doonaa caawa rag badan baa halkan fadhiyo oo dhageysan baa laga yaabaa way farabadayn riyooyinka runtii aan horta Soomaali isku doono oo waliba riyo u fasir waa waali un baan u arkaa xaqiiqatan marmar habeenkii kama seexdo bal qof dumaro inta kooda habeenimo labada habeenimo telefoon ku soo diraysa adigoo hurda sheekh yaan wahayay baqlada
miyaad hurdariyan wadee anna alla iga saamax allah ku hadiyay bay dhahday habaar iimaanka allah ka qaadaysan kuraa riyadaasi kulley waa maqasheen waxay ahayd inan bay la soo hadashay salaamu calaykum wacalaykum assalaam intii dhegaysatay waa ugu celinaya intii kalena may hore may maqal waxay tihi salaamu calaykum sheekh iska warran nabad waxay tihi waan riyooday haye waxay tihi waxaan ku riyooday anigoo uur 9 bilooda leh uur 9 bilood anigoo leh ayaan riyooday haye inan baan ahay bay tihi 18 jir maxaa sidee ku dhacday waxaan ku yidhi haddaad riyootay aad ku riyootay insha allahu tacaala xaas miyaad leedahay mayo imse jir baa tahay oo 18 insha allahu waad guursanaysaa dhowaan baan ku yidhi dhowaan baad guursanaysaa maxay iga yeedhsiiyey kelmaddaa aad baan uga xumaaday waxay iga gaadhi doonaa waayahay bay tiri laakiin 9 bil uurkan maxaan uur u yeeshay bay tiri hurdada dee adigaa seexday maanaa seexday baan ku yidhi waxaan ku yidhi 9 bilood waxaa laga yaabaa inaad 9 bilood gudahooda aad guursatid haddii ilaha yidhaa 2 bilood markii ka soo wareegtay ba telefoon ii soo dirtay salaamu calaykum wacalaykum assalaam sheekh may garanaysaa dee maxaan kaa garanayaa nambarkaagu iima seef garaysnee waa inantii riyada uurka aad tidhi 9 bilood kadib baad guursanaysaa 2 bilood baa ka soo wareegtay oo nin weli ma hayo oo weli maad guursan haa insha allah waad guursan waa ilahay baan kuu baryayaa 4 bilood salaamu calaykum sheekh ninkii ma garanaysaa ninkii aad tiri waad guursanaysaa haa waan xasuustay adeer dee ninkii wallay ka tahay ilaa imika ma hayo adeer maanad 18 jir ahayn haa iimaanka allah kaa qaaday maxaad ku degdegaysaa ayaan ku yidhi magaceeda waxaan ku seefgareeyey ilaahay iga saamaxee tii waa laydee riyada midhan ahayd sagaal bilood markii bishii 10aad ayay telefoon ii soo dirtay salaamu calaykum markiiba dee waan garanaya anigii baaba xiisoonayo nambarkii markiiba waan daf baan idhi haa ciblaaye iska warran nabad sheekh waan guursaday ninkii odaygina waa kan uu ag fadhiya waan ku barayaa oo miyaad oo 10 oodii wareeriyey wadaadadu hilibka way jecel yihiin londonna waa idila degatay maxaad ii soo casum weyday meherkaagii baan ku yidhi marka runtii taasaa ugu yaabka badnayd wallaahi malaa 7 jeer way soo toosisay habeen 3 habeen bay ii toosisay moogta marka imika waan joojiyey waxaan idhahdaa barnaamij mooyaane cid dambe yaan iswaali weydiinin jazaakum allahu khayr أضحك الله سنك ميكروفونك ولي سؤال وسؤال جمهورته يوعدينيان شيخ waxaan weydiin doonaa calaaqada iyo xiriirka ka dhaxeeya isaga iyo xaaskiisa ma ogoshihiin ما شاء الله بارك الله فيك تكبير باب الرعية ما مرتي ميا كجوابها باي ولي ما ضمان نبا وحو يري سدح قور بان صومري بيري الله وحي ودينا وحي سلين حدق ليال وين من كانوا مال كلي وحكي شيء دونا وحو يري سدح قور بان صومري بيري منا وان اسقمنا بيري منا وان اقبتي بيري منا انا قبي بيري شرح باليري وحو يري midna wuxuu yiri iyada ay qabtay markaan guriga soo gala awaamir iyo fariisa kan iyo baxayo wuxuu yiri mana madax hoos u dhigay soo gali jiray midna waan isqabnay buu yiri oo maantana adiga raashinka karinaya ana dharka dhaqaya adaa kan sameynay 50-50 ba ahayd buu yiri midda kalena wuxuu ana qabay oo guriga markaan soo galo oday baan ka ahaa waxaan amarkaan bixiyaa soconay wixii la ii sheego waxaan sheegay un baa soconay دكتور سعيد هل كاي عرابنته ها وراي بسم الله horta cilaaqadayda aniga xaaskayga alxamdulilah rabbil caalamiin wanaagsan tahay sanad iyo bar bay igu qaadatay inaan isguursanno oo dib lay dhigayayo marna lahaa arrintaa waxba kama jiraan marka horta si aan xaaskayga u guursado kaadideedaan u soo cabay laba qof waa isugu fiican baan alxamdulilah rabbil caalamiin imika ugu dambe mid maxaa ugu dambeeyay kala sii sido karoonuhu markuu dhacayna labada qof ingiriiskanu joognayo dee guri baa lagu xiray marka jacaylkaygu zaid buu noqday xaqiiqatan marka alimka soo baxayay iyana daaqad guriga sar baan deganay cimaaradda doorka saddexaad daaqadayga eegaysa anna hoosaan joogo sidii aflaantii hindidan usaa isu bacsalaamaynayna
mar dad badan oo jaar oo Soomaaliya baan la degan waxa laga yaabaa in daaqada naga eegayeen iyaga laftarkooda moogta sidaan u socday shantadii baan kala gurayo sidaan sidaa u lahaayaan mashquulsanaa baan madaxa ku dhuftay gidaar agtayda marka alxamdulilah su'aasha igu adag waxa weeye marka la igu yiraahdo imisa xaas baad leedahay ayaa la yiraahdaa xaas kaliya markaasuu yiraahdaa maad labayn markaasaan sidii qof ooyaya adeertaan dirqiya la ku guursaday mid labaad ma karayo adeer iga daayay oday baa igu yidhi adeer imisa xaas baad leedahay markaasaan ku yidhi mid markaasuu yidhi adeer xagga caafimaadka ma dhibaataa jirtaa markaasaan ku yidhi may waan fiicanahay libaax baan ahay libaax matiida bisad baa tahay buu yidhi marka alxamdulilah aad baan isugu wanaagsannahay iyana way dhegaysanaysaa baa laga yaabaa habi bay tahay caajiya waa keligaa weeyaan دكتور علي ما شاء الله ولي waxaa ku caawinaya microphone-kaaga microphone caswi marka u taagayso ku arkaysa xajiis ما شاء الله جزاه الله خيرا soo duceeye إلى إذن بركة بارك الله فيك معالي الدكتور ومهسن أضحك الله وسنة سؤال شكل واحد وجود بيا معالي الشيخ قارئنا وشيخنا الشيخ عبد الرشيد علي الصوفي الحمد لله عبد صار سبحان الله وان شيخ عبد الرشيد هدوسن موشينك كيني لهين واسك دافي لها لكن ركوا انا اسك عليو جزاه الله خيرا شيخ طبعا سؤال شدن بسان تغني واسك دورش الشيخ وكبودي كرا سؤال شدن تاسع حرجه مشكله ما لها قفكي نوغو دري لهانا تطبيقنا نقول لهي هذا انك دن هندي واسك نقول وا كريكا سؤالك جزاه الله خيرا مركب بارك الله فيك شيخنا طبعا مسيرتك الدعويه بيت دعوي قرآني وما شاء الله إلهي سبحانه وتعالى هكو بركايو ومضوحات كسو كردسي إلهي هكو بركايو أديقي الوالد رحمه الله وحرمنا كليا إن مستقبل كاغا دعويغا قرآن ونقضو والشقك لا آذن قبنين أنا هين هذه الدعوة وحيابها كسامي إنه الوالد إنه أصابها إي عوامشي كلا كساعودا ربنا سيدتك أفا إلهي هكو بركايو سيد درس النقو نقطي جزاه الله خير صلوا على رسول الله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين اذكروا الله قولوا لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله اللهم ارض عنا واغفر لنا يا رب العالمين وبعد انت اسكدب سؤال أخونا الدكتور علي وأصغر الجماعة على الإطلاق إن شاء الله واسدي بتصصر ربي جزاك الله خير إن شاء الله عشان يخفف عليه السؤال يعني مركا وحوي الحمد لله ثم الحمد لله دي سيدة دسع طامبا وحان كسو برباري بفضل الله ورحمته الوالد تحت يد الوالد عنتي سان كسو برباري يران تيدي إن آد يرى بريغي وحلقة يقول صدري وحنكون قرنيا شاجد كيني حمر مسجد كما عيسو حل لها وشيخ وبحيي مسجد القرآن الكريم لكن لو ما يقانوا والدي ضدك بقى مسجد شيخ علي صوفي وبحيي سو حرجنا مسجد كوا مسجد القرآن مسجد كامركي لا دشي وحن فيليا إني مركا هيد الشيخ أحمد وصو سقاشني لحيو لحدني سقاني لحدن كمالها سعيد بانو ملاينا سيديري لحدن كي لا سقاني لحدن مالها سعيد مركا مركي مساجد كولا باللابي أظن نشاط كيسي يدرستي وباللابي وحن كو حسوستا إن آدو يرى صلاة مركا اللي تكنيو هوري بو فريسين جري يعني صفكو لو جرو أيان هوري ذا فريسين جري تاسي وحي دليل تاهي إن أنا تقريبا دي مركا ما قرنيو يعني يران وحن كقبي إنو صفكو هوري إن صلاة أنو كقيب قليني هوري فريسي وحن كو قرتيون إن آدو يرى هو حسوستا إذا ساسي هذا أنا حلقة دي أيام كو جري أنا القرآن كبكعين كرين أي حلقة دي
jus baa la akhriyi jiray bacda almaqrib fajar kadibna hal jus baa la akhriyi jiray bishii 2 goor baa qur-aanku saa ku dhammaan jiray juskaas ayaa lagu tasxiixin jiray tajwiidka iyo tacliimta kale iyo wacdiga iyo intaba ay dhex socon jireen marka halkaasaan horta ku soo barbaaray bifadli illaahi tacaala haddii dhallinyaranimo iska soo maray iyo ciyaar iyo waan marmar waan ka han jirnay waxaan odhan jiray waa maxay darsigan aan fasaxba lahayn oon jumco lahayn oon xataa ciid lahayn yowm alciid xataa fasax ma leh habeenkii ciidda soo gelayso waa la fadhiyaa waxaan odhan jiray darsigan aan midda kale berigaana safar ma jirin cid safraysana male safarna lamaba aqoonin dee waalidkuna maba safri jirinba marka waa joogto weeye waan sheegay aan u malaynaya hadda ka hor salaada subax marka laga baxo wardi adkaar asabaxiya baa la akhriyi jiray marka kaasi ijbaari ma ahayn qasab ma ahayn ninkii doonaa la akhriyi jiray alwaalid raxmatullah calayh inta kalena waa iska joogi kareen marka meel baa intaa yar salaada u dhaxaysa taqriiban waa 20 daqiiqo meelahaas ayaan gidaar ku gamba jirnay oo in yar hurdada gashan jirnay hurdada aad ugu macaaneyd marka subax baan hurdadii iska macaansaday waxaan go'aansaday inaan been sheego oo ilaahu waan bukaa warkii yaraa u yaraa waan u yaaray waa bukaa waan jiranahay xagee ku xanuunaysa caloosha هيا سلام بورنجي يا سلام أرضو هذا إسكسيح هذا ما بكو لكن مركان سرير تيدي إمد على شو بالك قبت ما إلو من إله هذا تاريخ رسمي إلو حنون كيف عرب نقضيبا وعلى شو بالك قبت أدو تاريخها سايس كجري يعني والد آدي آد دتكي سو قاري بسو قاري وأخونا ولكن نقول هذا الشيخ أحمد وكملها يعني إنسان عابدة وتقية وأن قرنا يوم من الأيام يعني بين لبدا أذان ساعد بقول حجرتي لبدا أذان لحظة صوكعي مركزان وحنا نجي يرى كصوكعني أوهنتيس معقول ويا عاو شيطان بنا لتجي يعني وقت قاعين وصوكعي أيو كأويا ولا يا عاو شيطان بوقتي نقاطي مركا يعني تربيته هالكاسة حيد لكن وحقيقة للجري دي موجدي دعوي هيد اللي يراني ماذا هي سعوتي باجرتي وحن حسوستا أنا ودرسي القرآن كي وحي ينص عضان إن هذا مساجد كأربع ركن أنت جري وحاك أخرج جري تفسير كشيخ مريدي هيا كأخرج جري نور لا يرون بايك حين جري وحسود جيسين جري مركب موجة دعوية وفي عن باجرتي يو isku xidhnaasho dhalinyarada iyo tartiibaad wanaagsan iyo halkii baan yaan kala hana qaaday oo aanu quraanka si fiican aanu maaragtay u baranay oo inoo kaalmaysay yani isu imaatinka iyo jacaylka dhexdeena maray iyo mawaacid iyana waa de sidoo akhuuna sheekh saciid uu sheegayba mawaacid fara badan iyo mashaayikh cajaladahooda aan ku ta'athurnay dibadaha laga keenay jiray intaba way jireen لكن وحا أساسها لله الحمد والمنة ومسجد كوها اختيار كان ضمبي مركا عن دبادة أوبحي مصر تجي تعليم عن دوننا أذبوا إلى دردارمي شيخ أباهي رحمة الله عليه إن قرآن كان كد ذالو وحكى لها كل قوم بيري قرآن كاسا خير الدنيا والآخرة يكون جيران رنتي مركان ماشي تجينا وحن أركي علم القرآن قراءاتك عد دوني سابين نجري ويران وحال أورنجري 5,000 أو أرضي أو أزهر لقتا أيا جرتي أو دي بدها ككلا تمت ماشا ندقنين مدينة الجامعية اللي سيحنجري أنا يمت كلا أيا قرآن كدون جرني معهد القراءات أنت كلا وح شريعة كجرة وح لغة كجرة أنا وصية داسان كسعودي ولله الحمد خير فربنا وكاري وركي أنا وكل هذا أمر لنا يا شوما جزاك الله خير هذا وين أحسن حسوس تادي كل شيخنا ما أنت شيكا كوكويني هذا نوشك هلمس حتى وكوكولني في مصر يعني شيخ هلمس مصر وكوكولني أنا هردا أهلك أرضي كاها شغونا بمارتي أرضي كي هي مركا تاريخ والكاس طبعا تربية هذه واحد نوشكتي مركا يرايد هرت لهجة قارت كهدي جت سما بل نوغا شكيتاس
waxaan u malaynayaa wuxuu sheekhu uu daba taagan yahay kelimadan maanta meel aanu ka qadaynayna ka sheegay anigu aslan waxaan ku dhashay magaalo harar la yidhaha harar halkaasaan ku dhashay oo alwaalid raxmatullahi calayhi madraso uu ka hayay oo dadkii ka hana qaaday ee wax ka bartay badidood ay ka soo baxeen oo sheekh axmed magacyadoodu wada garanayo markii dambe xataa wasiirro ka noqday soomaaliya oo marka halkaasaan markaa uu sheegaya dee gaaladii laga soo cararay baa annagana naga soo qaxiyey meelaha kale kuwa kale markay ka yimaadaan dina siraa dhal mustaqim warkane meelaha ay marka iyo ka yimid waxaan soo oran jiray marka masjidkaas sidaas international ahaa oo luqadii markaa luqa iska waxaan dhexdhexaad baa intii badnayd hadda maxaad iga dareentay markaan hadlayo soo iska dhexdhexaad ma ah la sharqiyatan wala gharbiyya soo ma waa intaa weey بارك الله فيك جزاك الله خير شيخنا الردة حاجة قالوا انت دعوة كجرتي ولي دعوة كجرنا دعوة ولي كل دعوة انت كجرتي وحيابه كوغو ياب كبدنا كوغو غريب كبدنا واحد كقص الشيء واحد كنحذي واحد كويد وحي كصامر تجارب هذه dadka inta la tacaamulaysay taasaan rabnaa بارك الله فيك والله شيخ هو hadii horta umur badan baa jirtay aniga saab naqasheen mu'tamarkii horena way ku jirtay hadalkayga waa la xiray xabsi baan galay 89 baa ahayd baan filayaa 89 waa la xiray wax dambi oo sameeynayna ma jirin laakiin dee waad garanaysaan duruuftii bariga jirtay iyo dawladii jirtay iyo waxbaa la isqoonsaday anaga waa la xiray waxyaalaha aan la yaabo oo masaa'il alqur'aan ku saabsan ayaan xusuustay kullee waxaan iri doctorku caawo wuxuu buu ku weydiin doonaaye bal maxaa kuugu yaabadnaa intaad xabsiga ku jirtay waxaa iigu yaabadnayd xabsiga intaan ku jiray nin baa la soo xiray qol baan ku jirnaa nin baa la soo xiray waa la nagu soo daray marka ninka marka lagu kala soo qabanayo suuqa la iskaga soo qaban jiray loo sheegi maayo reerkiisa meesha marka dadka joogay xabsiga horeysigu joogay baa busta iyo wax siinay qolkeennii baan seexinay ninka marka habeenada ka mida inay habeenkii hore ahayd ku labaad inay ahayd garan maayo isagoo hurda camiiqa ku jira ayuu quraan bilaabay wuu hurdaa quraan buu akhrinayaa suurata qul baqara uu akhriyey aali cimraan buu ku xujiyey suuratu nisaa buu akhriyey wuuna hurdaa waa dhag hadda wuu hurdaa weliba waxaan xusuustaa سورة النساء لبا آية السؤك باكجرة إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما تنهروا تلبضنا ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا وتلبض تيهر مركو مري أيو يري تيهر وايو أقو تي دنبا مولي ما إيمانينه
waana sii wadaa wuuna hurdaa subaxii markaan weydiinay wallaahi ma ogi buu yidhi anigu dadku waxay ugu dhahaan adoo hurda ayaad qur-aanka akhriyaysa horta waxyaalihii cajaa'ibta lahaa ee xabsiga aan ku soo arkay intii aanu xidhnay ayay ka mid ahayd taama ku daynaa bas khalaas wallahu tacaala aclam jazaaka allah بارك الله فيك طبعا علماء أنو إيشو ذا كبقي لما ألف ليالي وبدأ ينحرج مجرين سؤال شكله وكبودي بارك الله فيك لكن سيد الدكتور سعيد يضدك هالألف لياشة خلاص وكل جنها بإذن الله سبحانه وتعالى أنا كل يهدي ولا قصل اللي هذيك قصل مرك أي حاجة أحمد شيل سمون من حزبنا سيدتني إيو حيهد لح إيو سيدتن كيف يهد بانو ملايين أنا مركا قبل هو إن الشيخ حسن هو وذكرنا إنسان كون دم قرن ما يعني ليش يا حسن هيك سو جيدا حق عمل لي رأود ويني إيو لولكا إيو حاحي حق هذا كسو جيدا ما قال قرن إنسان برضو شيخ حسن وحواد وزير كي الرماها الدين تا دولة دي سوماليا أيوها وأساد شيء إنسان الشيخ أحمد وحوها من حيش كيقو هايو أروس كامركي ودعي لكن دبعت هي رؤي قبصتي بهذه شيء أو إذا كي القصلين دون توحير يا هقبلنا إن المعلم هو هم يا هقبلنا المعلم بانوها تاسنا إيش كذي جبته جامعات اللي قال يصير جامعات أنا معلم كاه المهم صدق ذي وحي هيد مصريات مركي خبن قابدي أروسكي لقاري أيوة حيتري شيخ هدي أروسكي وصوص عضا أذيقنا ولقى هذه يقول خميس يعمامد ما قوة أرقنا ما حد حلن دون تاو حد دي خميس كي يعمامد إذا حلنا يا وحيتري لا يمكن هبين كاس وإن نكتين حلتها نكتين أنا وأنا مركا حق de dhalinyaranadii baan soo dhaafay oo sheekh baan masaajidka ka ahay oo odayaal fara badan baan markaa sheekh u noqday sheekh Axmed iyo ay ku jiraan oo anigu markaa aan tujiyo oo salaadii tahajjudkii waa islaantii sodohda ahayd waa isla mari weyne waxay tiri ma jirto arooskaasi ma badhacayo hadaadan surwaalka iyo shaatiga iyo nagtiinka soo xiran taraddud badan baa galay maxay yeelaa war barnaamijka iska kansala kulligii maxay yeelaa ما هذا بالك سروال كحيران كرا مركي دمب وحي نقطين اللي قاعد كذا واسكو قال هذا نكتين كي باللي صوت لي أنا أبتي بس كل يجي بهالكي هالك لو حيران جري حتى معه قرفات ميوا قرفاتي حتى ولا يحري وحير وحر مركا عن ديدي يظن إنه يقول قصبتي ده معدي كوفية أنا وتوريش ما توري يعني كوفية واحد كساد وضع مركا أنا يقول كوفية حيران نكتين حيران أيوة قاعد يسوق بتي شيخ أحمد باش أساسا كسوق الله والله تعالى أعلم الشيخ عبد الرشيد استيلها هو قلدي استيلها قلدي كوفية دي نكتي اسمه كينان جزاه الله خيرا إلهي سبحانه وتعالى بارك الله فيه قلت الشيخ مصطفى يدين مقداني يوم مقداني بسوء التقي بارك الله فيك وحنقول ان شيخنا الفاضل معالي الشيخ سعادة شيخ محمد عمر الديري مفتي البلاد فضيلة الشيخ وعلم على رأسه نار ومبانا تعريف رنتي محرمنا وسكرتير حزبك معارض كان موشن كيقول كاني marka waa inaan ka soo duldhaco ilaahay ha barakeeyo sheekhna ilaahay ma barakeeyo isaga cilmigiisa iyo faa'iidada ummadda uu galay kama qarsoona ma aragtay laydka baxaya isaga ka iftiin badan ilaahay subhanahu wa ta'ala ha barakeeyo raadkii iyo khayrkii insha Allah ummadda u hormariyay ilaahay subhanahu wa ta'ala fi miisaan xasanaati waxaan rabnaa marka sheekhasi ay dadka ugu daydaan inuu in yar oo kooban wixii saameeyay sabab u ahaa dacwadan in uu ma aragtay uu ka dhigto inay u noqoto mustaqbal ay u noqoto hadaf in uu iyada uu ilaahay subxaana wa tacaala ku arsuqo waxaan rabnaa in yar oo kooban inuu naga siiyo
halkuu ka bilaabay waxyaabihii saameeyey waxyaabihii ku bixiyey inuu dacwada uu ka dhigtay yoolka jazaahu allahu khayran falyatafadal mashkuura الحمد لله رب العالمين صلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم دكتوركو وهرت مهدسن يهايو سيدن كينو نغا يرا تبعيبات مودا أنا يا شيخة وستير لا وركا ugu dalacay دكتور سعيد uu naga diyaar dabciye waa ku mahadsan yahay way isaga laftiisu wuxuu ka baqayaa inaan ku soo jeestoon idhaahdo adiga daadaadu waa imisa horta ragaabta waa iska kaayay laaluushaya waa ka aqbalay hal midhiyar baan xusi lahaa oo aanu aanaynayo waafajinta ilaahay ka sakow oonan dadka u sheegin inta badan laakiin si looga faa'iidaysto ayaan caawa u sheegayaa markaasi waxa weeyaan alwaalid aabbo allaha u naxariisto waxa uu ka mid ahaa culimadii soomaalida ee akhri jiray fiqiga iyo tafsiirka iyo cilmiga naxwaha berberana uu ka akhri jiray masaajidkan calimataan markii la dhistayna raggii horeeye ka bilaabay buu ahaa xaaskii u horreeyey inamadu way ka dhinteen waqti lixdameeyadii meelaha aan ku qiyaasayo ayaa wuxuu habeen ka kacay meelahan siyaarada la yidhaahdo dadkeenu siyaaray dhagaan soo maaha siyaaro ballaadhan oo dadka tolku ay isugu yimaadeen ayuu iska dhex taagay dadkana sheekh buu markaa u ahaa oo isagaa la odhanayay ducee markaa wuxuu i waxaan idiin sheegayaa culimadii meesha fadhiday iyo dadweynihiiba xaaskii wax wiilala ma laha kutubtiina wax iga dhaxla ma hayo waa siday dadku dee aan ka hayo riwaayada ee tawaaturka ah isku waafaqeen marka wanka u horreeya aniga caawa ku yaboo haya ducaanada caawa idinkaan idin weydiinayaa bal inaan kutubta iga dhaxla inay igu ducaysaa maan idinka codsanaya waxaa markaa mar qura dadku ay yidhaahdeen eray ay odhan jireenoo caamadeen caadi u ah allaha aqbalo ha samaato ha la helo bay odhan jireen wixii ay aada u adkaynayaan ha samaato oo ha la helo eraygii bay ku celceliyeen kadibna wuu safray xaggaa kililka shanaad halkan iminka la ydhaa ama soomaalida etoobiya ay degto laba sheekhoo ay walaalahaayeen oo midna sheekh cali dirir la odhanaya midna sheekh cabdiraxmaan dirir ayuu dumarkoodii soo dumaalay labada sheekhna halkaasay ku geeriyoodeen markiiba waxa calool galnay aniga iyo nin kale oo aadan la yidhaahdo isku filan aanu nahay sidii baanu labadayadu ayaanu ku dhalannay intaa waxaa sii raaca oo saamaynta u weynaayahay markii dambena wuxuu bilaabay dhowr iyo 10 inuu waxna abti u yahay waxna dhalay waxna adeer u yahay inuu u bilaabo quraanka una dhameeyo aniguna kuwaasaan ka mid ahaa kutubta yaryarna u dhameeyo laakiin ugu dambayntii aniga xokaynu ahaa ku soo haray raggii way kala shaqo tageen wax dibadda tagay wax meelaha kala galay aniga xokaynu noqday markaa adeegaan u ahaa waxyaabo badan oo ragga kale uu ka maago ayaan qaban jiray anigu oo uu ka mid yahay mararka qaarkood in raashinka u kariyo ayada oo joogta wuxuu aad iyo aad u jeclaa inaan diinta barto isagaana ii dhigi jiray quraanka ka sako kutubta hoose iyo kutubta dhexeba ilaa 4-5 fan isagaa ii dhigay dardaarankii u dambeeyay wuxuu ahaa markuu sii dhimanayay kitaab hebel iyo kitaab hebel iyo kitaab hebel oo aan ku dhigay oo ka mid ahaa camriidiga kafraawiga cumdatu saaliga kutubtaas oo akhri ilaahay ha kuu sakhiree diintana ku dadaal dardaarankaasa ugu dambeeyay saasaanu adduunyada kaga tegay marka marka halka aan kala soo baxay waxa weeye intii ka dambeysay markuu geeriyooday waxa aad iigu sahlanaa inaan wax akhristo mararka qaarkoodna dadaal daada yare dhalinyarada kale aan qaarkoodba hadda joogaan aanay bixin jirin baa ilaahay ii fududayn jiray oo awoodayda ka baxsan mararka qaarkood ma garanayo kitaab aan akhristay oo aan ku soo celiyey samaari maayo laakiin dhalinyaradu baan uga jeedaa inay inagu daydaan juhdiga iyo dadaalkaasi waxaan islaayahay ducadaasaa door weyn ku lahayd
marka sheekadan waxaan ku keenay dhallinyaroy ducada waalidku waa wax aan la sahashan karin qiimo aad iyo aad u weyn leh arrin kasta oo kugu adkaada markaad waalidka ku adeecdo laba arrimood buu ilaahay kuu sahlayaa wixii aad doonaysana inaad hesho dadkaagana ilaahay uu kuu sahlo kuwaad adigu dhasho soomaaliduna waxay odhan jireen 3 arrimood midna kaama hadho kuftin jilib kalaam waalid iyo kaba subag haddaad subag cabto dacar baa kugu kiciyo kaa hadhi mayso haddaad jilibkaa u kuftana wuu kugu soo kacdoomi doonaa kalaamka waalidkuna duca iyo habaar mid kastuu yahay wuu ku daba socdaa marka casri fitnaa baynu joognaa waalidka ha la adeeco wax weynoo cajaabiyada ba idinka arki doontaan saameyntayda u weyn taasaan u aanaynayaa dee waafajintuna waa iska halkeeda oo qofku inuu barnaamij samaysto uu ku howlgalo aad bay muhiim u tahay anuu waqtiyadii aan wax akhrisan jiray ciidaha maan fasax qaadan jirin jumcayaashana maan fasax qaadan jirin muddo 7 sannadood gaadhaysa filimada maan geli jirin sportska maan geli jirin riwaayadahana maan geli jirin arrintaasi markaa waxaa ii sahashay shay 10 sano lagu soo ururin karo 2-3 sano inuu ilaahay waafajiyo is-ammaani mayno laakiin waxaan filayaa dictoorku inuu uga jeedo da'yarta inaga dambaysaa inay wax inaga daydaan ilaahayna ha inaga dhaafo haddaynu xoogaa buubuunina ku darnay way iga dhantay dictor جزاه الله خيرا فضيلة الشيخ إلهي سبحانه وتعالى هكو بركاي شيخنا قضاء وحبات كلا حكم السي وحبات فتواتي وحبات ديكتي مع شكل كجرين إن واجه ذي أما يكوغتي نواقف أتكيابتي أما أتكنح ذي أما كاقسلي سؤاله دتك يكويدين جرين أما دتك أتكلا حكم السي محا كويا بنا محا عبر لقلب بحكارات كحسوساتك سودو فضيلة الشيخ الله يحيي kolley deen shayga markaanad qorin ee aanad dabagelin sidaa dictoorka oo kale wax badan baa ku dhaafaya laakiin su-aalaha runtii aan aada uga yaabo waxaa ka mida baryahan dambe marka fatwada oo kale waxyaabo aan dhaqan inoo ahaan jirin horay ayaa kuu imanaya ruux dumaraba maalin maalmaha ka mida waa ii timid mabay fogeynba maxay leedahay sheekhow musiiba ay haysataa baladeeg hadda dhaqan xumadu halkay maraysa iyo diin la-aantu odaygii baa waxaan ka kari laahay inantiisii gabadhiisii waa tii uu dhalay ayaan ka kari laahay maxaa yeelaa sheekh waxaan anigu qabaa inaan ka furanahay ayaan anigu qabaa markaa uu arrin jiqigu noqday buu noqday haddaan idhaahdo ka car reer baan duminayaa haddaan idhaahdo ku joogo halkaasii joog arrin ka weyn weeye haddaan idhaahdo isagii u yeedh waxaaba laga yaabaa inuu idhaahdo maxaad sheekha igu sheegtay uu qoorta gooyo marka runtii waxyaabaha igu yaabadnaa ayay ka mid ahayd siyaabo kale ayuunbaan dee ugu jawaabo aan u maareeyey kuwayaalaha ugu yaab badan bay ka mid ahayd wax laga naxway fadiilad sheekh marba waxaan youtube-ka iyo facebook-gaba aan ka arkay barnaamij sports adoo waddada isku dhibagaya oo xawli ku socda marka barnaamijkaas waxyaabihii kugu dhaliyey iyo faa'iidadii aad heshay iyo reactionka dadkaan u baahanay jazaaka allahu khayr waad ku mahadsan tahay su-aasha adi yar fududaysay jazaaka allahu khayran horta arrinkaasi si yaro kadiisu u dhacay anigoo meel iska lugaynaya ayaa nin kabarad sitaba igu soo baxay oo dhallinyaradana watan kabaradda lagu saliiday moogta isla kay sawiriyey hal min suura iyo waxuun bay had iyo jeer ku qabtaan gaadhigaa meel dhigtay waa iska lugaynayay wuu isoo helay waa igu qabtay markii dambena microfoonka ayuu si yaroo dhaqso ah iigu dhoweeyey kelmad yaro jeediyay oo dadkii dee aan ku dhiiri gelinaya inaanay si xaydh fadhida aanay u noqonin inay yaro dhaqdhaqaaqaan yaro dhiiriya laba arrimoodun baa markaa igaga soo noqday midi waxa weeyaan sheekhu waxay yidhaahdeen war ma wuxuu fududeeyuu fasaxay barnaamijkii kaalay ila lugee kaalay ila lugeedu show waa barnaamij iga horreeyey buu ahaayo dumarka hargeysa qaar ka mid a ayaa show ku yaro baaqay oo
wadooyinkay show lugeeyaan wax kaloo kusii hoos jira garan maaye kaale ila lugee barnaamijkii la odhan jiray kii baaba sheekhu fasaxay bay idhahdeen qolo kalena waxay idhahaan oo sheekhiisa ka youtuber buu noqdee markaad youtube-ka isku xayeysiiyaan ayaa uu noqday marka taasina kolley sidaasay ahayd laakiin barnaamijka iska kadiska ah ayuunbuu runtii ahaa جزاك الله خير فضيلة الشيخ waxaan u gudbayaa biidni illaahi subxaana wa tacaala su-aasha kale waxaa iska leh فضيلة الشيخ شريف طويل شيخ شريف طويل runtii marka kutub iyo culum laga hadlaa la soo xusuustaa ilaahi subxaana wa tacaala ha barakeeyo culumta sida aboorka u dhex galay maa min kitaabin ilaa sida ay tahay u laqaa waxaan u malaynayaa dad badan culamo ha noqdeen caamo ha noqdeen dalabatilcilmi aad baa loogaga faa'iday ilahi subxana wa taala ha barakeeyo waxaan u baahannahay marka isaga su-aashiisa waxay tahay sheekhna horta kutubtaas funuunta say u ratibtay maxaad kala hormarisay yaa sabab kuugu ahaa inaad bal kusoo dhowaatid dalabatilcilmi fara badan baa meesha jooga meelo fog baa laga yimid bal ha faa'idaysteen kusoo dhowow بسم الله دكتور هرتا أنا مؤيدين تان كم هاي معارض ما هي باش إيجا فضوضي أولا سبب طلب العلم وحى رئيسي يوها أبه عليه رحمة الله أبا وحوها لأنه علماء منهاجك عربية موسى نقولين نحوذا يوحى كصابسا لكن فقه شافعية رجع خستا يوها سجى بركة يقول ذلك شيء إن الفقه شافعية أخرسته قرآن كسجى إيب بالله كدبنا وذات أدير يوتوسنا شيخنا ها رنتنا قادر وينها ayaa intii kale isii dhamaystiray weliba ninkaasi manni badan buuban uu igu lahaayo quraanku markaan si fiican u farbarannay yaa wuxuu noo bilaabay kitaabo yaryar weliba khaasatan caqiidadii ashaacirada kitaabadeedii ayuu noo bilaabay kadibna fiqhiga ayuu noo bilaabay safiinaha qaasimiga cumdaha قرآن كمان كان دميني منهاج كان وار دميني إرشاد كان إلى العبادة النوجا أقريي كأرن كاسا سبب يجوها مركي دمنا وارح ليستيو علماء إذا شيخي يجو مهم سنة يانو تجي سجانا يسي لما يشتري أنت يرين أخرستي كسر دو دكتور جزاك الله خير فضيلة الشيخ إلهي سبحانه وتعالى هاكو بركايو أنت كتبت أديجيسي فضيلة الشيخ وحيابه كوجياب كبضنا أما هالنقطة إقبال طلبة العلم على العلم أما هالنقطة إني كجابيان وحيابها بالحوجات المن إن شاء الله أرنتي محوها يقول يا بدنا يدو حيا هيد مقالة يرو تولا يعني شغني وان واخر سنين كتابه خاصة عربية ده مقالة داسي مقالة هذا في عم بياهيد أنه ما أن شقي سنين هيرها أيان كتعلق سنين وعنتنا سينية سلام نما ينو سينية قبيل ما بايا هين أرن كلنا ما هين أركا أنه كتاب كان أغري سنينه يلا حوحدا عن هيرها كسوعنا ينمويه وحكلون وركا هين مجري waxyar kadib waxaa magaalada yimid qolyahan xirta xadrayso loo yaqaano oo ayagu aan waxba akhrisanine iska digriyo meel magaalada ku dhow ayay degeen maalmo kadibna magaalada gabdhaheedii ayay guursadeen oo baarakallahu laka ayaa ka dhacday annagoo nacdada baan aragnay markii dambe oo la leeyahay kuwan hungurigu bay u joogeene dee dan kale ma ayan lahayn taasaa noogu yaab badnayd arrimo kaloo yaryarna waa jireen kusoo dhowow doctor
جزاك الله خير فضيلة الشيخ شريف وأن كقد بيا بإذن الله سبحانه وتعالى وعنو معنا معالي الدكتور شيخ حسن وشيخ كيليان وقالها إنه يغير يعني رجع كلامية معالي كسر دو مسيرك التعليمية قري علمي والوالد الشيخ أيات طبعا كسر بربارتي لكن تأثير كمان ابنها من هذا الجانب لكن إن مستقبل كاو نقضو سيدا الوالد أو كلا إن الدعوة كشر قيسيد وحيابه كسامي كتبتي واحد كنت أثرتك سدو بسم الله الحمد لله وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم إبايو ما أنتو دوان حناق صنايو نلا دعيبا لهايو دكتور سعيدو ماشان كتريولا علماء أنا وير بانكا قاوة marka laakiin hadda markii Xamza uu soo sallaxay waxa weeye Dr. Calina uu sii dalbaday markii dambana Sheekh Cabdirashiid uu goolkii ku dhaliyay cala al-itlaaq inuu ugu yar yahay waxa weeye cafa Allahu anhum Allah afiyo li soo taagan ba xoolihiisa la qaybsaday Allah ka afiyo inta hadda taa kaga gudbo horta waa arkaysaan oo caawa waxa loo badan yahay laba taytalo sheekh dhalay baa loo baday raga qaarna waa dhinacay ka soo galeen oo doctor weey marka kuwaas ku jiraayo waalidkii waa nool yahay Allah xafido Sheekh Cali Warsame waxaan tilmaamayaa un mowqifyo kooban oo saameeyay waxa weeye dacwadda aanu ku jirnaa waliba anigu aan bilowga ahay oo ragani waqti badan bay soo qaateen haddii Ilaahay igu simo inkastoo wadka loo siman yahay aanu insha Allah taala islaana waa ku sii socon doontaan aabe wuxuu dhiganayay jaamacadda Madiina secondary iyo jaamacad labada markuu dhameeyay wuxuu u dalbaday jaamacadda Riyaad ku taala ayuu master ka dalbaday walibana waxa la yiri markuu jaamacadda dhameeyay Sacuudiga waxa laga bilaabayaa wax master la yiraahdo ayaa laga bilaabi doonaa laba sano ka bacdi baa la furayaa jidda iska sii tag jidduu ku sugaya ilaa laga bilaabay lodkii ugu horeeyay ee ka galay dawladda Sacuudiga gudihiisa master buu kamid ahaa waxaan dhashay isagoo masterkii wada ayaan dhashay horta taas waa iska sababo Suyuudi baa markuu sakhaawis qabtaan ayaa wuxuu yiraahdaa nin kutub ku dhex dhashay iyo nin isagoo weyn cilmiga bilaabay ma sinna buu yiraahdaa marka horta aabbo master wadaan anigu dhashay oo Riyaad baan ku dhashay markii la soo laabtayna wadankii lagu soo noqday aabba chance badan uma naan helin oo dil baa lagu xukumay dawladdii shuuciga ahayd ee dalka ka talinaysay ayuun baa caydhsanaysay waxaan xasuustaa anagoo guriga ku ciyaarayna ciidamadii dawladdu intay noo yimaadaan bay nacnaciyana siiyaan oo yidhaahdaan aabba xaguu joogaa noloshaasaan horta ku soo kornayo aabba chance badan uma naan helin laakiin wuxuu ku fiicnaa macallin buu noo sameeyay booskii waalidka noo galay oo 10 sano ku dhawaad gacanta nagu hayay oo guriga nagula noolaa macallinkaas hadda Imaaraadku jooga Sheekh Maxamed Cabdi Cawl booskii waalidku buuxiyay aabbana dushu ducada ka soo waday banaanadaas uu gaaf wareegay mawaaqifta aad ka saameysay waxa kamid ah markii aan soo yara kacay ee aan gaadhay 9 jir meelahaas baan quraankii xafiday walibana muqdishaan ku xafiday معلم اللي يلاحظه فرح شيخ علي وأرضي الشيخ علي الصوفي شيخ علي الصوفي هلك أوجي بكن نقرية شيخ عبد الرشيد نادر بوي نقرية أيا وحوي قرآن كي إدميي مدة 9 بلاد إلا سنة ذا أيام قرآن كي كو حفظي طبعا نوحا نقضيبا كبير كي بالعامد ده رقيقة وين باتشوقي مركي دبا وحا نطلع عينو تبنشرة هو يوينكي oo ay ku jirto hooyada anoo yar bay dhimatay xaaskii aabe oo na soo korsatay ardaydii la lodka ahaa iyo dumar waaweyn oo hooyooyina oo sitaaradii noo dhaxaysan macallin u noqday anoo 10 jir dabeedna mawaaqifta iga soo mara waxa kamid ahaa sidaan uga dhageysanayaan ilaahda caashay ka bax markaasay tira anigu maanta malihi maanta ka bixi maayo dhiigii caadada leedahay caadana ma aqaan markaasaan dhowr iyo 3 bay noqdaan macallinkan u tagaa waxa dhahay macallin sida u joogtay oo anigu maanta malihiya ka bixi maayo ma maalma la fasaxay
markaasuu fahmay macallinka wuxuu yidhi xaalado gaara baa jire iyo muu cadday laftiisu hadda unbaa dee wax waliba obbiliska yihiin hadda shan jirkaa og baan u malaynaya dabadeedna uu ifahansiiye wuxuu yidhi adigu hadday ku yidhaahdaan melihi ka soco waxbaa ka dhegaysa horta anoo yar inaan macallinnimo bilaabay saamayn bay ahayd markii dalka lagu soo noqday 29kii ayaa waxaan bilaabay haddana magaalada waxaa la yidhi xaafidaha la doono anaa lay soo helay imaam taraawiix iyo tahajud baan noqday anoo yar waxaan xasuustaa cimaamada ma lahayna ilmo yar baan ahaaye cimaamadda aabbaa maalinkaa madaxa la isii saaraa dabeedna cimaamaddaan dhulka jiida cimaamaddaa iga weyn markaan dadka ka dul tallaabsanaya waa la ii banneeya ma awood inaan ka dul tallaabsado taraawiixda iyo tahajudkaan tujinayey imaamnimadaana waa laygu shaambadeeyo raggii ila lodka ah marka meelaha hablaha lala hadlayo haddaan is idhaahdaba la hadal war shiikhiina tujinaya miyaanu ahayn baa la yidhaahdaa suuqa waa iga xidhma taasina qodob bay ahayd iyaduna saameyntayda iska leh waxaa kaloo saamayn lahaa anigoo taraawiixda iyo tahajudka tujiya ayaan koox star la yidhaahdana kabtan u ahaa ee lambar 10 u ahaa oo dhiidaan ka dhalin jiray dabeedna marna waan soo tujiyaa salaaddii baan soo tujiyaa marna kubaddii baan hogaamiye ka ahay oo xidigtiiba halkan igu xidhan calaamaddiiba halkan igu xidhan marka laba mowqifba way dhici jireenoo marna aabbaa intuu arkaan oo ku soo habsaamay kubaddii ayuu ila fadhiistaa aniga iyo nin kaloo la yidhaahdo doctor maxamed oo isagoo hadda caafimaadkoo dictoora labadayadaasuu nala faqaayo wuxuu yidhaha ragga waa ka duwantihiin waan idinku xisaabtamaya waxa weeye kubadda joojiya wakhtigee ka faa'iidaysta wacdi gaaroo annagu markaanu dhibsanaynay dhalinyaro waa taqaanaa ciyaal waa taqaanaa 13 jir baan ahaa ayuu nagu wacdinayay dabadeedna waxaa soo labaynaysay raggii masaajidka joogay ee iska jibbaysnaa xamaaskuna berigaa waa badnaa ayaa iyaguna markay kubadda igu arkaanba waxay ii wacdinayeen sidii nin gaaloobay oo hadda soo islaamay iyaguna dabada ii qabtaan wacdi ilaalintaasina waa socotay markaan 17 jir gaadhay ayaa maalin aabba igu yidhi war ma isku dayaysaa khudbad waxaa ku yidhi khudbaddu waa sahlanta waa khudbadaynaya 17 jirna khudbaddii jimcaan ku bilaabay oo welibana bilaa warqad aan ku akhriyaya intaan soo xifdiyo khudbaddii ayaan dusha ka jeedin jiray labaduba carabi bay ahaayeen walow mawaaqifa iga soo mareenoo maalmaha qaar khudbaddii koowaad ayaa inta badan dheerta dambena waa iska salliya oo koobanta intii aadaanku socday baa tii koowaad iga duushay hawada ka baxday intaan dadka egeegayay adaankii markuu dhammaaday khudbaddii baan baadhay waa bilowgo amaa bacdu waxa ku xiga haddaad soo qaban weydo way tagtay sabxaddaasiba waa ku daysay dabadeedna bise koon baan isaga qabto tii dambe koobnayd ayaan helo tii baan ku bilaabay intaan taa waday ee astakfirullah dadku lahaayeen baa tii labaadna meel dhexaan ka xasuustay adigu waxaan uga jeedaa mawaaqiftaa kala duwan iyo dee kolley ducada waalidka waxaa ku soo gabagabaynayaa burca waxaa nin baa intuu busaaradooday buu iswaalay dabeedna waalidaasuu dadka ku shaxaadayey maalinkii dambaa le war hebelo waanu ognahay inaadan waalle waanu ka ognahay iska soo noqo haddana xaalkaagu waa wanaagsan yihi wuxuu ihi meelaan ka noqdo ma joogo marka anigu horta bahashayda waxa ay meelaan ka noqdo ma joogo bahal noocaasa bay ahayd waa ka baxay جزاه الله خيرا معالي الدكتور waxba kama tegin جزاه الله خيرا intii aan rabnay nooga jawaabay waxaan u soo gudbaya sheekh almis المصري